بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waa barnaamijkeeni kaftanka siyaasadda oo nooga barateen Soomaali American TV waxa soo diyaariyay iskuna soo dabirida Cali Xaraare iyo anigu Badri Muuse Faarax oo la daadiya Cali maxaad noo soo aad baad mahadsantahay Badri Muuse Faarax adaa mudan Cali bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaaban doonaa dabcan qadar yar oo xayisiisa waxaan ku bilaaban doonaa shirkadda guryaha dhista ama iibisa ee xarunteedu tahay Nairobi ee Minara Homes taasoo wanaagsan Minara Homes waxay idin haysaa guryo aad u qurux badan dhismayaashoodu oo runtii idin cajab gelin doona guryahaasi waxay noqon doonaan ay idinka iibinayso shirkadaasi caanka ah ee Minara Homes guryo gaagaaban oo ah kuwa Soomaalida u taqaano villooyinka iyo guryaha kale ee apartmentska ah lacagaha habka aad u bixinaysid daawadow waxa weeye lacagta marka ugu horeysa aad dhigaysid amaba down paymentka loo yaqaano boqolkiiba 30 ayaad bixinaysaa waxaana lacagtaasi ay socon doontaa muddo lagu qiyaaso 4 sanadood dhismayaasha guryaha ayaa waxa ay socon doonaan 2 sano inta dhismahaasi socdana waxaad bixinaysaa iyadana 40% lacagtii guriga marka la isku daro 30kii hore ee aad dhigtay iyo 40 ka dambe 70% waxay noqonaysaa marka aad bixisid in furaha gacanta laga saaro hamogaanin Kenya magaalada Nairobi guryaha ugu quruxda badan iyo meelaha ugu quruxda badan oo ay dhisto shirkadda Minara Homes ku soo dhawaada taas waa taa marka waxaan ku xijin doonaa Safa waa creamkii aan muddo dadka gaarsiinayna u sheegaynay aad iyo aad in imkana uu meel kasta uu yaalo heli karayaan iyadoo mararka qaarkood uu yaraado laakiin doorkan meel walba ayuu yaalaa waad ka helaysaa marka Safa hamoogaanina waa creamka urqaha iyo xididada iyo muruqyada iyo qoorta albowska meel kasta waxa soo dhan dawada wax dad badan aad uga caafimaadeen runtii aad iyo aad marka iyadana hamoogaanina waxaad dhamaantood ka helaysaan waxyaabahan xaysiinayno shaashada oo lambaradooda aan ku soo qorro ma leedahay xanuunada dhabar xanuunka muruqyada qoorta iskooysyada amaba xaglaha laabma haddii jawaabtaadu daawade ay noqoto haa waxaad la xiriiraysaa shirkadda Safa Beauty oo iyadu soo diyaarisay dawo arrimahaasi wax weyn ka qabanaysa kareemkaasi jirka lagu duugo oo haatan dad badani ay ka soo falceliyeen isla markaasina ay soo amaaneen ayaa waxa haatan aad ka heli kartaa meelo badan oo caalamka ka mid ah oo dawadaasi ay soo gaadhay haddii aad degan tahay dalka Mareykanka amaba USA la xiriir lambarka shaashada ku qoran daba daawadayaal hamoogaanina lana xiriira meelahaasi aan idin tilmaanay waxaan ka bilaabi doonaa magaalada Muqdisho horta arrimihii Soomaaliya marka la yiraahdo xagee maraya ayaa dadka ina daawada ma jeceli in aan rajadooda aan xumeeyo aad iyo aad rajo wanaagsan bay nagu u diyaarinaynaa in aan wax ka qariyana ma doonayo aad iyo aad maadaama inaga inagu xidhan yihiin oo ay doonayaan wararka oo faahfaahsan inay helaan nacam sida wax u dhacayaan ayaan u sharaxaynaa qodobkan imika soo cusboonaaday madasha wada tashiga ee madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha wada fadhiistay nacam ayaa hindise soo saaray ama tala soo jeediyay taladu waa tala degdega oo aan hore loo hadalhayn sax mid waa arrin wanaagsan oo in doorasho qof iyo coda in loo dareero mustaqbalka aad iyo aad mustaqbalka dhow ay soo jeediyeen arrinkaasi waa arrin aad fiican oo saxbirina anagu si fiican u fiirso aad iyo aad wixii aan bogaadinayna waa wixii ummadda dan u ah aad u weyn wixii aan dhaliilayna waa waxaan ummadda dan u ahayn aad iyo aad ummaduna arkayso aniga markaa dan gooniya oo igu jirta ma jirto sax laakiin waxaan doonayaa runtii iyo xaqiiqda in ummadda u soo gudbino hindisahaasi dhinaca ku saabsan in doorasho qofcooda ay dawladdu samayso waa wax looga fadhiyo la wada doonayo oo aynu u hambalyeynayno aad iyo aad hambalyaan leenahay qodob kale oo ay la taraartay ayaa jira dawladdu la taraartay taraan madaxweynaha ayaa la taraaray qodobkaas muxuu yahay in nidaamkan laga gudbo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo loo bedelo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waa sheeko cusub sheekadaasi sheeko la hadal hayay oo meesha ku jirta debate dood soo martay maaha
ها وبرلمانك واسحيي ها إمك واحد شفته سومالدو هدي إمك بريطان دوفو ها oo inagu halkan wada fadhina intaynu wada qadayno caawa inba gurigiisa saxdo ha oo aroortii lagu yiraahdo cali wuxuu tagay England ha so yaabi mees hawan yaabi xalay baan wada joogteenay unika xalay wada joognay shalay wada shaqeynay waxba mu sheegnay taasa la yiraahdo kadis ha masiirka ummadda Soomaalida ha kadis lagama dhigaba aad weyn masiirka ummadda Soomaaliyeed waa mid dastuur ku socda waa mid golayaal leh waa mid xukuumad leh waa mid madaxweyne leh waxay u baahan tahay in laga tashto procedure-kii la maro dawladnimada hadii kale waxay noqonaysaa qalin warqada qaadatay oo adigu sida aad jeceshahay aad samaysay aad noo sheegtay marka ugu horeysa 7 nin oo Soomaali anu qabiil ma oranayo 7 nin oo Soomaali oo kuwa madasha ay ka hadlayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay u dhiibatay hoggaan aad iyo masiirkoodii ma jiro mid kasta iska soo habaysta inuu dadku doomayaan dhiibay laba gool aan samaysanay madaxweynaha dooranay ra'iisul wasaaraha dooranay toddobadan meel ka timi iyo meel u socdaan ma garanayno waa toddobaas cirka ka soo degeen Soomaaliyeed arrimahan imika aynu ka hadlayno waa arrimo dastuur iyo sharci laga hadlayo waxa iska leh golaha sharci dejinta aad oo baarlamaanka in ay ka doodaan oo baarlamaanka inay ka doodaan oo marka ay ka doodaan ay natiijo ka soo saaraan aad qodobo ha hadana xilligan maxaa keenay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen garanmayno waa sheekada la gashaan malay odayga madaxweynaha sheekadu baa la gashay waayahay hadana go'aanka toddobada nin waaxdi u weyneed maamul goboleedyada ayaa ka maqnay iyana lama tixgelino lama oran barnaamijkii bal nimanka Puntland la yiraahdo dib ugu noqono aad oo inaan go'aan ba iska soo saaray dhaqaac ma iska soo saartay warta marka uu horeysa go'aankaasi waa waxba kama jiraan waa linear jeebki haye marka xaqiiqada ka hadalana Puntland oo maqan ba inta kale toddobada kale go'aan gaari karaan wax macquul ma waa been aad waayahay looma dhalnay baa oran iyadoo aan dastuurkii iyo la marin sharci dejintii oo baarlamaanku aanu approve gareyn waxyaabaha laga hadlayo ayaanu iska sheeganaynaa iyana waa meel ka dhac ummadda Soomaaliyeed loo geysanayo aad marka shacabka ummadda Soomaaliyeed ayaa la doonayaa in la marin habaabiyo waa say u egtahay oo lagu tunto aad waxa jirta maryaha markaynu dhaqan jirnay maradu ama daah ha noqoto ama marweyn ha noqoto ama shaarba ha noqoto maya marweyn markaan dhaqno labadeenu وين المروجينو ها من حق قبصة أنا حق قبصة أنا حق أو opposite side لو ذكر المروجين ها مركا ونتوشين ولا توشين ها حق الداية بيو أما وسخ مركا مريه أي سيدا لو مروجي سما أو لو توشيا عاديات ويحكوا تشري جدها أي بنانك صدقها إمك مسكح ذي شعبك أي أنت اللي مروجيو أي لا توشيا marka la tujiyaa la daadiyaa marka la daadinaya marka qofkii oo inta la meeray la maroojiyay maskaxdiisi oo la tujiyay oo qalfoofin ba soo farsanay mise waa qori taagan waxba kala ogaba sawir waa iska sawir caadi ah maskaxdu ma doorto saasa loo tujiyay haye Puntland way hadashay haye maxay tiri waxaan sheegay sax kuma jiraan waa runtood waana sax waa sax xaq bay u leeyahay I agree with them yes arrinkaas sameeyay naam حسن شيخ محمود أي هذا كور بدري وحكى هذلي إن مدحوينه وحكوا نيكي كوري محمد عبد الله فرماتشو برلمان كل هذا يا حسن يسوون مدحوينه هين صح وحلي مدحوينه محمد عبد الله فرماتشو وحكوا صعدا إنه كل يطلع يجوا أنس كجارو ذلك إذا كان ليجين ديبتي نعم والبرلمانو نيكا حكوا سيديننا inuu keligii tala sii daayo ee bal wax ka qabta idinka u taagana ka hadlo oo ka aamusina naam tiba isaga hadda haysata ma hadalkaas ma fiicnaan oo fiicnaa imika isaga hadlay marka isagii baa iska dib isku hadlay imika isagii baa doonaya inuu go'aan iska gaaro keligii wax ma shaqeynayso marka wixii shalay aad diidanayd maanta qodobo horna uu soo maray oo wuxuu diidanaa uu ku dhaqmay xasan naam imikana waxaan tusi doonaa dadweynaha bal maanta sidoo lahaa iyo maanta bal daawasho wanaagsan golaha shacabka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa looga fadhiyaa shaqadan inay qabtaan shaqadooda ayaguna cudurdaar uma heli doonaan
madaxweynaha dikreet ku soo saaray anigana waa iska fadhi meel waa dhegaysanayay waajibkoodii dastuuriga ayay gabeen ayay noqonaysaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka intaba war hooy dastuurka laguma tuman karo qof iskama leh institutional iska leh waajibaa idinka saaran waajibka idinka saaran gudta madaxweynaha waajibkiisa ma ahan mana u dalagay uma wakiilan kartiin madaxweynaha meelaad ugu wakiilateenna ma jirta xataa وريها علي واضح ساسما ها حسن ما شاء الله صح سلام زمان تصحصيه وكا يا شيخ حسن ها وانا هورو شيغايو عاديات waxaan idhi isagun baa su'aal keena iskana jawaaba isagaan isu ya لاعب ويا حسن اي inuu taladan iyo buuqan xilligan timi iyo inoo keena xaqiiqatan baasho waan garan lahay xasan sheekh hawreegta garaanto wada iyo madaxweyne ku xigeen iyo midna kuma jirin qorshaan waxa uu ka yimi waa hawreegta garaanto wuxuu ka yimi Ismaaciil Margeele adeerka waxa weeye labada dal ee Djibouti iyo Soomaaliya ayuu isaga maamula waa madaxweynaha qaranka madaxweynaha labada dal weeye madaxweynaha labada dal Ismaaciil talooyinka isagu gaaro ayuu u soo jeediyaa Xasan iyo intii la halmaasha markaas ay warkii qaataan iyana way faafiyaan inta hoosana maalinta Xasan waxa ka sheekeynay in xitaa Ismaaciil gabar uu dhalay oo arrimaha dibadda ay matasho Soomaaliya ما جيبوتي دلكيس وسفروا راح راجعتي صح ولي ماليد iyo arrimaha dibadda labadaba gabadha maamusha tii madana xasan sheego xasan ma arko isna gabadhiisa u dhiibay arrimaha dibadda wada socotaa marka hawreegta garaanto talooyinka baarlamaanku in la sameeyo madaxweyne dictator oo madaxweyne ku xigeenkan uu iska yahay magacuyaal ay Ismaaciil bay ka timi si qofka madaxweynihi uu isaga raago iska sifadhiyo si qofka madaxweynihi uu helo awood nacam ayaa halkaas ka timi wax ka soo horjeestaba uu waayo Djibouti madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu yiri laba xisbi oo qura ayaa ka jira ayaa Soomaaliya may ka talnaya imika wixii ka dambeeya Mareykan baa talo labadaasi sida Mareykanka iyo Dimuqraadiyadda ma laba reer bay noqonayaan waa xaafadan reer macalqa waxaan reer macalqa labada reer ayaa weligood markaa talinaya inta kale Soomaali maaha waa barkafayl kuwa ka dambe waagii lagu jiray xalane ayaa waxa la yiraahdaa kuwa kale gaardiye marti gaardiga xun bagaash baa loo jiray sabab xasan kuwa bagaashka xaggaas kugu leexiya marka 0.5 ka oo dhan 5 ka oo dhan waa bagaash waa sama saas la doonaya bagaash ma doo ummad Soomaaliyeed oo xaq kula wadanka oo muwaadiniina ay yeeshay waxa la doonaya in cidla la taago waxba loo ogol handii Soomaaliya anu waxyaabo ka soo horjeedo waxa kamid ah sida qorshaanka ay ku socoto in laba xisbi oo laba qabiila oo say midalan beesha hawiye iyo beesha daarood kaliya ayaa weligood ku loolamaya kursigan anu waxaan hay dadka ka soo horjeeda anoo ku raacsan marka hore waxa loo yiri hay risaaq iyo maxay inta kale marootiba رشيد يرسق مويان رشيد يرسق مويان انت كلو مروتي بقى الابت تسمني ومال كدا لبدي دونيان بحال نقدان ان لا يراهدو لبا خير يا كجرا ايا لبا حسبيه مدحين اسماعيل عمر قال دور لا تصل ودنك هيستا نعم لح حسبي ايا كجرا ودن لح ومعارضه ولا ما يموش مي يسوي لك ديكتاتور ودافي مي لح دبا معارضك سو حزب قدوميه ما talada haya lixda mucaarada kalena isaga haysta isagu hoos yimaadeen waa isaga iyo lix u wato oo مثلا laba xisbi oo kamid ah xisbiyada oday baa ka dhintay xisbi gudoomiye aadiyad gabadhu dhalay ayaa loo dhiibay ma isaga u dhiibay Ismaaciil baa u dhiibay odayaashii ciise intuu tagay ay mulaagu qabiyo wuxuu yiri gabadhu uu dhalay aynu ka dhigno hayaay waa laga dhigay dalaq xisbi kale oo mucaarada ay ilaahay markii odayga dhintaysna gabadhiisa uu ka dhigay waa waree waxa Soomaalidu ma oga laakiin laba xisbi oo laba gabdhood ay matalaan labaduba gurigiisa joogaan isaga taageersan xaflad markuu qabto oo mucaarada labada gabdhood waxay isleeyeen madaxweynaha waxa ka dhigay way imanayaan waa taageersan ninka caynka samaystay wuxuu doonayaa inuu sii raago oo muddo dheer uu sii joogo meesha joogo aadiyad waayahay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa arrimahan aynu ka hadlay
wax shaqaynaya ma hablo أنا عبد الشكور منور والله عيبه ما هو رجلي ورقيدي ها هي إنه يدمن وأنا شيء آه أنا عبد الرحمن عبد الشكور آه قضبض أنا كنت على حكم ذا آه وبنادم ده خلدم كراوان الصحي كراي آديات لكن وانين وركيس عدل إسكعدين أتكلم الناس سووا الضنيات آديات oo isiri qabyaalada imika dadku ay ku meerasanayaan ugo waa laga maarmi karaa meel kale ayaa la mari karaa Soomaalinimo aadiyad wuxuu Puntland in la ignore gareeyo aniga khalad beelad waa runtii ko waa fahamsama wuxuu yiri doorasho qof iyo coda in dawladdu ay ballan qaado waa u hambaleyno wax wanaagsan waa sax soo laba qodob ma waa labadii qodob ee aniguna aan hadda ka hadlay aadiyad laakiin waxa kale la soo dhadhoobaya waxa ma jiraan waxba ma jiraan كنا نقول فكرة في عن أنا عبد الرحمن عبد الشكور بريان دمبي ودني ما كير دريمة عبد الرحمن عقلي يسي وشقينا يمك صوت ما ذكر هندساني أي اللي ما دين حتى شغية كويسو وام حياة دبا ومدكرسي دي اللي بالنيو حسب حسوت شدي إن الحين 10 سنة الله ورده قبل الله يكون درسان سنة كذا واشي كذي بقولي كي جرتوك عليه سيف عم بقول درسان مركا تضبطني تضبط waxbaa ku taagnaa sax todobadii wax ku taagnaayeen ayuu mid walba wuxuu yiri ha ka fuqdee sida ogolow ana sida ay ogolow sanad ku darso waa dhag waa sidii rabeen sax way halkaas qodobka ma yahay muddo-kororsiga sababtan keenna xasan ku kaliftay inuu arrimaha sameeyo iyo waxa jira dad dagaalama oo dagaalkooda qaarna uu dhamaado qaarna uu dhamaan waayo nacam Puntland bay saxayaan xasan sheekh Saciid Cabdilaahi Deni shacabka ismahayaan dagaalka Puntland ayaa xasan maskaxdiisa ka dhaqaynay la fogaaday aad marka dagaalkii uu la gelayay Puntland ay doonayeen inuu Soomaali inta kale ku baabiyo aan ka fogaano nimankan macquul ma nimankan hadda niman la ignore garayn karo marka xaqiiqada laga hadlayo ma hayna oo kaftanka laga baxo marka daacadda la isku waramo waa niman Soomaaliyeed waa maamul goboleedkii ugu horeeyay Soomaaliya garan hadii ciyaarta aad ciyaartay Saciidanina mid kale uu ciyaaro labadiinuba siyaasiyiin baatiin aadiyad yaa hoo qaadanin xumaan lagu sameeyo ummadii Soomaaliyeed ma taas isbuu ka arki waayay wanaag aad xagan ka wadid waa intaas marka muddo-kororsi iyo Puntland oo la dagaalamo aadiyad ayaa odayga halka u sawiran isaga la gashay aadiyad waayahay waxa isagana bariyahan ay dadku aad uga qeynayeen ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ama Xamse Cabdi Barre oo ifridi hadla aadiyad shalay markuu madaxweynuhu yiri madaxweyne iyo ku xigeen ayaynu sameeynaa isaga baa soo fadhiistay waan sameeysan karnaa waayo sidaan la socono Mareykankuba madaxweyne iyo ku xigeen ay leeyihiin hadda kursigiisa ku hadlaya kiisa baa la isku haystaa ma oga warka ma hayo ismooga aqalkiiba ku guuleysaa ismoog unsigii washadaysaa ku jira marka waa nin leh kaalay dukaankayga qabsado wax kale ka dhigan laakiin ma oga Saudi وفهمت سمع أقول سفاسري وياه نيك أودجع هبل بري هراء مدحين حسن شيخ أيها وح أمها Puntland هي وكتبقى أنت أمها لبدي أيوكم يصي أمها هي مركب وانا يقول إنك واحد شيء يا حسن شيخ لا يلاحظه مدحينها دولة فترة كالصومالية واحد يسجل دبيسة Puntland وكهرتمت سلو دجال ولا قلة إنه هي المدكرة صار بقضب هالكلام لا بقضبها عذق بهريال حمسة محاش ذا يأمر بالله هذا ما أنت حتى واحد لي وكذا واحد لي ما أنت Puntland بهذا كوش تمات خميسي هي واشيك لا ما بحنا بلي Puntland لا ما بحنا أنا محنا جو حماني أنت ذا كله أي أسكو فيلم بين هي أرنكاسي ولي محمود يا عرو محاش ذا هذا بحسن حمسنا حلا أرن بالوقف لي هي كرسي جاجا Puntland بدون سن marka isagu markuu hadlayo ummadii Soomaaliyeed la hadli maayo Puntland uu isagu la hadlaya rag buu la hadlaya uu leeyahay meesheeda bartaan meeshiisan cid soo socota ma jirto way dhamaatay waa isku dhamaatay ra'iisul wasaaraha waxa ka dhaadhici lahaa hadda hadalka si fiican u fiirso ummadda Soomaaliyeed ayaa ra'iisul wasaare u tahay taas kama dhaadhacsan isaga nimankan Puntland iskaga difaacdaa waa ka dhaadhacsan nimankan sidee isaga celisaa meeshaada u soo socdaan inta kaliya ku ful madaxweyne wuxuu leeyahay حمزة ده أنا حنسميه قرمايا أنا أوكي بناها مش لص على كرسي جاك مركز كدفاع مركز صافر سنة مركز هذا الشيء مدحوينه حطوه هذا هو اللي كهذا يسوي السياسي هذا الحين ولي حوانا حسن بهذا الفعل هي
waayo maxaan u leeyahay sidaa hay nabaruu damqaya nacam nabarada dhay rag buu ku dhaga hadlaya aad oo maamul buu ku dhaga hadlaya wala arkay meesha u socdo haada way iska caday marka wuxuu ka dhigay siyaasadii Soomaaliya iyo mas'uuliyadiisii kursiga uu ku fadhiyo inta kaliya ku dhigay kursigana kuma sii fadhiyaba haada ma soconayso waqti buu leeyahay oo dhamaysanaya mid kale in adeerkiisa imanaya mid kale adeerkiisa imanaya mid kale Puntland imanaya mid kale Galdow ka yimaada imanaya aad umada Soomaaliyeed meesha way u furantahay aad ma aha inuu soo arko inaad reer ama gobol baan kursi ka qaatay meeytaas ma soo celinay ma may marka ha hawshan kursigaaga ilaasho de macquul ma hawlka weyn ayaa meesha ku jirta ayaa laga sugayay aad odayga صح marka waxay ahayd xataa hadii uu nimanka ka baqsan yahay kursigiisa in oo si fiican u hadlo aad Soomaalnimo صح walaalnimo soo dhaweena oo wax isku keeni kartaa aad in dad kala fogeysid ma صح intaan ma iga haysan waan ka hayaa sheeko ayaan ku soo wadaa hay sheeko yaab leh hay sheekada xayawaanka ayaa sidii dadkii bay dawlad samaysteen raiisul wasaare oo baarlamaanka madaxweynaha wasiirka waxbarashada leh gaadiid kale ki xayawaanka duur kale hay marka biciidka meel baa loo dhiibaya dhurwaaga meel baa loo dhiibaya liderka meel baa walba shaqatay aad bakaylaha meel baa loo dhiibaya hal dhurwaa ayaa shaqo waayay صح marka xafiisyadii dawladda xayawaanka ay marba tagaa application soo qaatay wuxuu inuu buuxiyo shaqo galo maalintii dambe shaqo dhurwaa loo doonayba uu waayay nacam way buuxdaa meel kasta wuxuu soo helay meel laga doonayo bakayle wuxuu inuu intaad wax xiraysid inta ku sii melgaan bakaylihii buu buuxsaday inuu bakayle yahay ayuu macnihii buuxsaday hadii dhurwaa waraabe ayaa bakayle buuxsaday uu buuxsaday shaqadii oo bakayla loo baxnaayo markiiba waa laga qabtay waraaqaha Muqdisho beenbeenta xagee laga sameystaa suuqa bakara ama fi Egypt ma oran jireen waxay oran jireen maxay meesha meel baa jirta waraaqaha Cabdalla Shideeya xayawaanku Cabdalla Shideeya leeyahay Cabdalla Shideeya xayawaanka u gaar Cabdalla Shideeyahoodii baa u tageen documents soo sameystay inuu maxay yahay bakayle wadruwaade macal sawirka wadruwaa waraaqii baa laga qabtay shaqadii baa la siiyay shaqa galbaalay uu galay odaygii aad buu qoslay shaqadiisii lacagta baa imanaysa moogta lacag yar ayaa u timaada oo tii bakaylaha ayaa u timaada intaas markii dhacday ay muxuu arkay dhurwaa caadi oo isagoo kale oo shaqaynaya oo dhurwaa ahaan ku shaqaynaya dhurwaa muu toobal nabado inaga isku gobole horta misaad ku shaqaysaa dhurwaagii u baad lacag badan sheegtay adigu 25 kun buu markaas uu horeede kuna anu waan go'ay meeshan dhowr bilood ka shaqaynay 3 kun ma ku shaqay bishii maxaad qaataa inta maxaa dhacay bilo wuxuu documentskayga bakayl ahaan ma ku shaqeeya inta bakaylo qaadan la bad qaad maxaa soo yeeshay waxaan sameeyay madaxa la gal wuxuu yiri haddii si sameeyay si aad u dhaqatid imika wixii ka dambeeya waxaad kalam garaysaa waxaad ku andacootaa in waraabo saxad oo bakayli ka dalacday guddi baa loo sameeyay markaa guddidu maxay cadeynaysaa inuu ninka yahay inuu ninka bakayli yahay inuu dhurwaa yahay inay soo kala cadeyso guddidu waa 3 dameer 3 dameer dameeruhu iyo baa iska dameeraha waxay ku joogaan iyaguna shabeello Cabdalla Shideeya mid balista Cabdalla Shideeya waraaqaha shahaadooyna iyo wax wataan inay shabeeleeyeen marka waxa leeyahay guddida shabeellada ayaa qaadaysa garta bakaylaha aadiyad guddida shabeelladu waayo waa 3 dameerdii waa 3 dameer nimankii dameeradii ninkii bay eegeen documentskii Cabdalla Shideeya sawirkiisii wixii soo dhan charge ashibu ku dhuftay miiska book bakayla tahay because what ku soo abalay anagu documentska eegana as bakayle ayaa tahay ayaa u shaqeynaysaa ninkii madaxu xoqay waayo wiil waqtigiiba ku noqday dhurwaagi wuxuu ku yiri inuu saasa u dhacday waa wuxuu raafan qaadanayo waayo ma adu dhurwaagi ku shaqeynaysaa bakayle ma wiil markaas yiri waniyo danta ku jirta sidee dantaada ugu jirta de nimankan aad leedahay dameero ma ahniyo ayaga shabeel ku jooga iyaga shabeel ku jooga anoo dhurwaadan shabeel isku doonto Soomaali ma
marka maxaa talaa buu bakayl ahaan buu ku shaqeynaya buu bakaylegaas iska jooga bakayl iska jooga waa iska jooga buu haddii sidaa tahay buu oo dantaadu ku jirto oo inaad daacadnimo shaqadan u gudatid oo aad iska dangaadhid هو اسك عادي بكيل اهم بو شقه ها اسك شقه ولا وكر المشاهد خمسه برا بكيل اهم بو شقينا isagoo og wuxuu yahay meesha ka soo ayuu hadda dantiisa markuu eegay bakayl ahaan ku shaqeynaa bakayl ahaan buu shaqeynaa iska shaqeeyay marka aan waxaan oran lahayn bakaylnimada iska shaqeey bakaylnimada in kan shidada laga daayo waayo sida dhuraaga ay wuxuu gartay inuu shahaadadiisa iska shaqeeyo Cabdalla Shideeyaha ee bakaylnimo oo ku shaqeeyo inuu ku shaqeeyo marka anagu waxaan leenahay in kan shidada laga daayo isagoo shaqadiisa ha wato bakaylnimadiisa ku wato waa seetay intaan ma igaysa waan ka hayaa وايه هي بوتلاند ما كوغينيا بوتلاند ها انت هore qaybta siyaasadda ee mid toos bay noo galayna in ba airport ka maanta laga qabtay dhab dhoofay dhab hay oo reer garowa wara meesha dimuqraadiyadii ayaa yar shaqeynaysa hay ma waxa uu la goostay muqdisho dimuqraadiyadu waxa u fasasheen si cajiib ah waxa u fasasheen imika shaabarka soo iibsado ama aanu aan samaysto shaaban samaysto aad sonkorta maxaa ku darsanaya in adigu kugu filan aniga filanteen ana garanay aad qaadaan ka dhiganaya haaf baa ka dhiganaya labaan ka dhiganaya hadaan doono sokorba ku darmaayo sidiisa ku cabisa dumraadida saas oo arkaan iyagu koob shaaha oo sonkorta inta doonto ku darsanaysa iyagu arkaan ay muqdisho arkaan mana aha sidaa nimankii Puntland baa soo haray khadar faroole oo Cabdiraxmaan faroole dhacay oo ah ergeyga ganacsiga iyo hadii la koore iskaashiga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayuu yahay sax xasan shibu ergey aad ayaa wuxuu ka mid yahay ragii dhawaanta la soo dhijiyay Saciid Cabdulaahi Dani uu yiri tartanka ay yiraahdeen uu yiri 3-4 nin oo aaranjana oo doonay in xasiloon darro ka ridaan nabadgelyo darro ka ridaan Puntland ay ka ridaan Puntland hay marka waa kii soo maxkamadda ay soo jirtay warning waaranka hadana waxa lagu dhameeyay in ciidamadii ay arinjad soo galin garoowe oo nin jimcaale la yiraahdo oo jimcaale leeyina waxa leeyahay jimcaale waxa leeyahay abgaal nin la yiraahdo waa khatar xaafadii oo arrin wajh dimuqraadiyad khatar ma huwa ogaan waa khatarnimo hadii arkaan nin gaabna aad madow abgaal baa baxnaa ويابنا هذا نقل هذا جمعة كوفر بلا قلبها جمعة وجمعة كله سيك سواء نقطة نكنا كابكا إن دور الشقة في عيد عن لعن قروات دايما كالنقال عن لقى عظيم صح مركا إن لسكول دعوه سكول عيد عن هذا واحد رؤوس الشاقي حسن الشيخ محمود خد بدي مساعدك 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 مدحتويدا حسن الشيخ محمود وامد هنا ergeygani ergeyga ganacsiga iskaashiga ayaa lagu maamuusayaa waa ergeyga qaska garoowe iyo duminta iyo burburinta Puntland hay ay ergeyga hay marka ciidamadii la yiri ka saara si idinkana waaranka la idinka daayo kamay saarin hay maanta qalaasa ka dhacay airportka sax ciidamaha hadana kala haysta meesha airportka deni laftiisu ciidamadu ku soo ururiyay markuu arkay in nimankan aanay baxayn hay ninkii baa isri maanta dhoofo muqdisho tag hay dhab wala iska laalaadey wala qabtay gudaha tigreeta madaxweynaha loo dhoof kartay laakiin gudaha ma dhigin dib loo celiyay waxaan suug ilaa amar dambe waa sheeko wanaagsan daan tahriib dhinaca aynaba iyo xaga marin ama ay dooni ka raacin airport ka dhoof kartay baa aduu tahriib karaa taas waxay muujinaysaa dimuqraadiyad aad wanaagsan dimuqraadiyad aad fiican sax iyo waliba hab nabadgelyo ama diblomaasiyadeed oo loola dhaqmay qasoodayaashii aad iyo aad qasoodayaashu waa ilaa 5 nin oo jimcaalaha iyo abgaalka ay ku jiraan jimcaaluhu soo waan xagga ciidanka loo adeegsado siirigu baa la garaacaya guduhu ku jira soo galaya dhir ka baxa oo baxaya soo maaha nin talahaya ma jimcaal waa laacib markaas waa nin lagu shaqaysanay maya soo wala isticmaalaya waa ciidamada laakiin ragga ku shaqaysanaya waa faroole iyo wiilkiisa iyo dhashiisa iyo حسن أبقال نوضي اسمه قبوبين الو أرمي هذا يقول ريه والله وسر قال علي محمود شدو واو من اللي يلاحظه محمد ليزر مقعدنا الشيء سيدو نو وضع كونفورتا بدلا القواب بحبا مركا حوي رقاس ودوني إني كريتان ماشا نيكا روضيقها سعيد أما سعيد داني آنو سمينين دور الشقو في عضا
ayay saa u sameeyeen waxay kaloo nimankan ay wakiil ka yihiin sir hoosan kuu sheegaya nimankan Arajan iyo waxa wada shaqaysta mas'uuliyiinta Somaliland waa sheeko wanaagsan nimankaasi waxay xagal daacinayaan qoladan Sool ee doonayaan iyaguna inay goostaan inay iska saaraan ciidamada Somaliland banaanka ee dagaalada ay ka dhaxeeyaan ay nimankan hoosaasiyaan haday shar jimcaale inta u direen iyo ciidan iyo baabuur wato weereen waa ay marba waxay dhahdaan u baqa carar marka la isku rido ay bisiideen xuf marka Soomaal oo eriyaday والله تبقى والله تبقى nin ma maqashay la yiraahdo xildhibaan baa la qabtay Soomaal la qabtay oo ka tirsan Puntland xildhibaan Puntland ahaan jiray hore x oo la qabtay jimcaalahana ka carareen jimcaali soo raaco markaas ka carareen way ka carareen dagaal soo marba maalmo lama galo one day ay ka baxsaday gaarigu fuul kari waay adigu gaarigu ka dhacay dhowr gaariga ka dhacay oo Somaliland qabatay jimcaale ciidankiisa marka waa siyaasad qayb kamid ah aad iyo aad waa qayb iminkana waxay ku jiraan in reer Sool ay biis ka dhigaan arrintan maartay gooja cadda iyo dagaalada gooja cadaan ay doonayaan inay mashquuliin ay dhahdaan reer Sool idma iman karno oo annagiiba isku buuqsan aad iyo aad oo saysana waa siyaasad waa siyaasad loo degay waa fahamsaba marka nimanka gooja cadde xaggan Somaliland bay ka wada shaqeeyaan hoos xaggan kalena Muqdisho ay la shaqeeyaan oo lacaga fara badan baa meesha gobolka yimaada si lacagahaasi lagula dagaalamo deni la dagaalamayo cidda la dagaalamaya waa shacabka la baabiinaya wala isla kormaraya waa fahamsama si fiican marka imsan baa ku yiri shan iyo xabadii la qabtay 6 ma kuwaas ninka la qabtay askari caadi ah waxa ka hadlaya inta Arajanti waa intaas waa shanta Arajaniinta dadkii markaan eegnay doorashooyinka galay ee meesha la yiraahdo Puntland si cad oo dimuqraadiyad oo wanaaga oo ay ku faraxsan yihiin ugu soo banaan baxay ilaahay baa noo anigu waan taageersanahay cali ahaan cid alla cidii si dimuqraadiyad laynu soo gashaba isdooranaysa haddii Somaliland tahay haddii Jubaland haddii Puntland tahay haddii Puntland tahay haddii Galmudug tahay haddii Muqdisho tahay haddii Shabeelle tahay cid alla laakiin cidii tiraahdo doorasho dadban baan rabnaa anigu qolada hanada intaas tuuganima ku jirta calo taas qodobba tahay aad iyo aad waxaan kaloo taageersanahay shacabka reer Puntland hadday mar labaad doortaan deni iyo hadday diidaan oo hebel abgaal doortaan iyaga u taala ma anigu way soo kamid hada iyaga u taala waxay soo kamid tahay dadkan dareenkoodii u bixiyeen iyo wixii ay doorashadooda dookooda xaq u lahaayeen iyaga iskale aad iyo aad anigu lama leeyahay taas waa ku taageersanahay marka laakiin shacabka ayaan niyada u dhisaya aan la jirnaa oo aan garab taagna wallahi wixii idinku aad rabtaan waa idin la rabnaa anagu asalka waxaan kaloo ka soo horjeedaa cid alla cidii dhulkeeda baabi'inaysa taan waa ka soo horjeednaa oo iyadoo cadowgiisu iyadoo doonaysa maslaxad in ay wax ku helaan caadiya taan waa taasna waa tahay arrimahaasna waxay ka jiraan Puntland banaanka doona wixii wara ee ka soo cusbanaada sax Somaliland ma goynaa marka Somaliland diyaaradda Hargeysa ka degtaa maanta Somaliland qodobkan meesha ku qosay waxa weeye garaadadii reer Sool ee Muqdisho tagay aad iyo aad waxay sarkeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fadhigii way ku soo kala kaceen iyadoo la salaamay fadhigii loo kala may way wada hadleen qodobadii way isku afgaran waayeen waa la isku fahmi waayeen biri oo khamiis la soo noqonaya ama jimcaha maya ay soo dhoofeen soo noqonaya filimku waa isku dhamaaday filim waxay doonayeen iyo waxa loogu jawaabay baa ka tagan waxa wadno yaadhay madaxweyne maxaad noogu yaadhay wuxuu yiri Somaliland la heshiiya oo miiska wada hadalka soo fadhiista oo ogolaada inay wada hadashaan xabadana joojiya waxay yiraahdeen iyaga weerar nagu soo qaaday madaafiic nala dhacay iyaga hadalkoodii baan iyana sheegaya annagu waxaan ku ballanay in ciidamadooda ay nagala baxaan صح ilaa iyo og tagan kadibna amiiskooda aan soo fiirsano waxaan doonay baan ku wada hadlo wuxuu maya ciidamada Muuse Biixi hadii uu la baxo shacabkiisa reer Somaliland ayaa kacayoo la dagaalamaya iyaga maxaa ka galay wuxuu yidhahdeen adigu markaa Muuse tahay mise Xasan hawaan mid cadaystaa
haddaad leedahay sidii muuse u hadlayay baan u hadlaya anigu waxaa taa nooga dhib yar inaan muuse la hadallo dee ha adigu waxaa tahay male waayan muqdisho kugu nimi waa sax haddaan dhexdhexaad ahayn oonad lahayn isagana saasaan idinkuna saasaan idin leeyahay waan idin dhexeeyaa raalle naga noqo ha naga raalli hawniyo annaga noo taallaa waxaan samaynayno muuse biixi inaan wada hadallo iyo inaanu diidno aniguna cali ahaan intaan looba yeedhin oo beri hore la hadalhayay laba jeer ay baaqdeen nacam ayaan fikir u soo jeediyey waxaan ku yidhi fikirka odayaasha garaadada soolow inaad xasan hor fadhiisataan xasan sheekh oo arrinta sool iyo somaliland kala hadashaan waxaa idinka hawl yar in muusaha madfaca idinla dhacaya aada hor fadhiisataan oo aad kala hadashaan arrinkan anaa yidhi waa sax taada saxsanayd markaan sidaa lahaa anigu igama ahayn masiirkiinii bedela in somaliland aad ka hadhaan ama ka godaan ama ciidamadooda ay idinkala baxaane ujeedada waxa weeye ninka wax idinka dhexeeyaan wax isku haysaan waa isaga ee dadku way isdilaan aad iyo aad oo dagaalamaan ilaa weligeed baa la isbaabinay sax waa ninkani wuu idiin hoosaasinaya xasan aad iyo aad maskax kaloo ku shaqeynaya marka garaadada Djibouti baanu tagaynaa oo arrinta Soomaaliland kala hadalnaa anigu waxaan u arkay khalad muqdisho aanu tagaynaa oo arrinta Soomaaliland baanu kala hadlaynaa iyadana waxaan u arkay khalad electric inay tagaan baa heeday halka isugu keenayna war hada ma fahanti marka nimanka odayaasha arrin bay u sheegeen waxay yiraahdeen Sheekh Calleer ma taqaan Sheekh Calleer haweenka shabaab ku jira shabaabka madax u ah afayeenka waxay yiraahdeen madaxweyne xasan sheekhow Sheekh Calleer oo al-shabaab wata ama al-shabaab madaxdooda oo dhulkiina jooga beesha abgaal reer maxal waaxaga dhax jooga haysta oo xabad in ka dhaxayso ma xabadii joojisido wada hadashaan waa jawaabtii ay aan basin laayeen marka nimanka odayaashii dagaalka maxaa la yiraahdaa fadhiga ama madashaas way lagu kala tagay madal been ay ahayd markii hore calow waa lagu kala tagay madal lagu gaadiyay iminka kale ee la yiraahdo ra'iisul wasaarahana Xamse Barana madaxweynuhu raacay isagu ma horu aflagaado ugu geystay garaadada Allah waa arrin laga oo iyo gobolka Soolo wuxuu yiri dadka reer Soolo joojiya isqaawinta inuu yiraahdo Soomaaliland joojiya xabada kama hadlo marka adiga odagana uu tiraxtay qodobka isqaawinta ayaa dilay aad nimanka odayaashii waxay soo noqonayaan hadii eebaha awood leh ogolaado berri ama maalinta khamiista iyo hadii la ku reeyahay iyo coach cadiide iyo ama maalinta jimcaha ay sool ku noqonayaan barnaamijkeeni kaftanka siyaasadda oo maanta intaan ku soo gabagabeynayo waa maalin Arbaca sax maalintii ugu dambeysay bisha May ama 31 May sanadka 2023 iyo 23 intaas ku soo koobay aad baa maasantay Badri daawadayaal saaxiibayaal barnaamijkeeni kaftanka siyaasaduna maanta waa naga inta aniga Cali waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo